Kelyuhu waa xubno aad u muhiim ah kuwaas oo shaqadoodu ugu weyn tahay inay jirka ka saaraan sunta sidoo kalena waxay jirka ka saaraan biyaha badan ee loo baahnayn waxa jira dad aad u fara badan oo u dhagan nugleen xaqiiqda ah inaynu daryeelno kaliyaheena haddii aynaan ka taxadirin oo aynaan imika la socon caafimaadka kaliyaheena waxa hubaal ah inaynu waqti aan aad u fogeyn qoomamayn doono si kastaba ha ahaatee muuqaalkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa balwado iyo caadooyin caan ah oo aynu maalin walba sameeyno kuwaas oo dhaawaca kaliyaheena oo ay tahay inaad ka taxadirto adoon biyo kugu filan cabin khatar ayaad gelinaysaa kaliyahaaga haddii aanad cabin biyo kugu filan sida aan hore u sheegnay shaqada ugu weyn ee kaliyuhu waa inay jirka ka saaraan waxyaabaha qashinka ah sidoo kalena ay isku dheelitiraan dhiigga cas ee jirka marka aanad cabin biyo kugu filan oo shaqadan wadi kara waxa dhacaysa in jirkaaga ay ku ururto sun fara badan haddii jirkaaga ay sun ku ururtana macnaheedu waa in caafimaadkaagu uu khatar ku jiro laba adoo waqti badan kaadida isku haya kaadida oo waqti dheer isku xajisa waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhaawaca u geysta kaliyaha kaadida oo waqti dheer isku xajisa waxay cadaadis ku keentaa kaliyaha taasi oo sababtay inay kaliyuhu shaqadooda joojiyaan sidoo kalena waxay sababaysaa in bakteeriyada kaadida ka dhalanaysa ay farabadato taasi oo sababtay infection ku dhaca kaadi haysta iyo sidoo kale infection ku dhaca kaliyaha inaad kaadido waqtiga ku habboon ee saxda ah waa tale aad lagugu dhiirigelinayo si aad u daryeesho caafimaadka kaliyahaaga 3 isticmaalka milixda badan inaad si joogto ah cunto ay ku badan tahay milixdu waxay dhaawici kartaa kaliyahaaga waxay kaloo sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad markay milixdu jirkeena ku badato waxay kaliyuhu si aad ah uga shaqeeyaan sida ay milixda badan uga saari lahaayeen jirka taasi oo kaliyaha ku sababaysa cadaadis iyo culays badan 4 cuntada borotiinku aadka ugu badan yahay inkastoo cuntada borotiinka lihi aad ugu fiican tahay jirka haddana cunista borotiinka xad dhaafka ah wuxuu sababaa xanuun ku dhaca kaliyaha 5 isticmaalka xad dhaafka ah ee caffeine maadadan loo yaqaan caffeine waxay inta badan ku jirtaa cuntooyinka ay ka mid yihiin shokolaatada iyo cabitaanada ay ka mid yihiin kafeega soft drinks iyo cabitaanada energy-ga loo cabo isticmaalkooduna wuxuu sababaa in cadaadiska dhiiggu uu kor u kaco taasina waxay culays badan saartaa kaliyaha taasi oo aakhirka sababtay in kaliyuhu shaqadooda joojiyaan 6 cabista sigaarka cabista sigaarku waxay dedejisaa in kaliyuhu shaqadooda joojiyaan waxaana ka sii dartaa oo ay sii xumaysaa xanuunadii ay kaliyuhu hore u qabeen 7 kaniinada xanuun baabiyayaasha pain killers inaad isticmaasho kaniinada xanuun baabiyayaasha iyadoo xanuun badan aanu ka haynin uma fiicna kaliyahaaga khabiirada ku xeel dheer arrimaha caafimaadku waxay ka digaan cunista joogtada ah ee kaniinada xanuun baabiyayaasha pain killers kuwaas oo ay sheegeen inay dhibaato weyn u geystaan shaqada kaliyaha waxaan rajeynayaa in muuqaalkan si weyn ku caawin doono like saar subscribe haddii aad nagu cusub tahay sidoo kale la wadaaga asxaabtaada iyo qoyskaagaba wanigo Cabdirasaaq Faaraxa tan iyo kulankeena kan xiga haddii Allah idmo amaana Allah iyo ismaqal dambe xiiso leh